gudoomiyaha gobolka Sool Maxamed Maxamuud Cali Xaaji Jeeniyare ayaa ka hadlay hawlgallo ay ciidamada bileysku ay sameeyeen kuwaas oo ay ku soo qabteen dad uu sheegay inay ka dambeeyeen falalka amni darro ee ka jiray magaalada Laascaanood wuxuuna tilmaamay in baaritaanno ay sameeyeen xaafado ka mid ah magaalada Laascaanood ay ku soo heleen dadkaasi sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in ay ku soo qabteen walxaha qarxa kuwaas oo ay dhawaan u soo bandhigi doonaan warbaahinta dawladdu way ka howlgashay waftidiyaar qaran iyo maamulka cusbaa ee gobolka talaabooyin badan oo muhiim ah qaadnay waxyaabihii hore oo aan qabanay oo ku guuleysanay waan soo bandhignay waxa ku xigay oo aan wali soo bandhigay oo yaraan ay soo bandhigi doonaa waxa weeye xabiista tamaan qabanay oo wareyshinada dadkii fulinayay dadka leen jiray ahaa iyo qalabadoodii wixii hore aan soo bandhignay wixii ka dambeeyay waxaan qabanay ragii aktarada ahaa ee kuwii hore aan qabanay madaxda u ahaa iyo wareyshinada fulinayay gacantaan ku dhignay ilaahay waa nagu guuleeyey waxaa kaloo ilaahay nagu guuleeyey askartii beddelka ahayd ee al-shabaab ahayd ee laga soo diray koonfur ee sida qarsoodiga aragtay inay kusoo galaan caasimadda gobolka Laascaanood iyagana ilaahay waa nagu guuleeyey 9 baa hadda noo xiran 9 wiil koogu weyn waa 18 jir koogu yarna waa 15 jir waa askar bedela gacan saar marka la isku faydaya taab badan waa rag la gashay ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay nagu guuleeyo inuu hambada hadhayna nagu sii guuleeyo waxa kale aan ku guuleysanay oo maanta qabana annagoo soo bandhigi doona guri ay qalabkii ku sameynayeen qalabkii qarxiyaha sida kamaanadii garaydadii meeshii wax ku cuni jireen ma garatay taana ilaahay waa nagu guuleeyey marka howlaha gobolka ka socda meel fiican bay nabadgelyadu hadda maraysaa nimankii shabaab la oran jiray dadkoodii baa nagu galay idinka saxaafadaha ma aragna wax saxda aan aragtaan ama aan sheegno inaad gudbisaan koonfur baa laynooga soo diray gobollada Soomaaliland oo dhan baa la rabaa inay ka shaqeeyaan waa loo soo diray way noo sheegay kuwa aan qabanay qaarkood ka waxaan u soo jeedinaynaa oo shacabka ugu baaqaynaa reer Sool iyo reer Somaliland inay meel uga soo wada jeedaan argagixisada waa dad yar oo ay roratay aan la firi karin qofka aan waxaan aqoon ama u fiirsan ama maskax badan ku lumin uma garan karo